bismillaahi raxmaani raxiim soo dhowaada saaxiibayaal magaalada khaza duqayntii ugu cusleed ayaa ku dhacday. israa'iil waxay sheegtay inay bilowday howlgalkii dhanka dhulka saacado un kadib markii uu soo idlaaday shirkii dowladaha carabta. midkee la dhaqangeliyey go'aanadii la qaatay, ma kii talaabiib mise kii dowxa? venezuela waxaa lagu warramayaa duqayn inay ka dhacday. muuqaalka warbaahinta qabsaday ee dalka bakistan, wasiirka jeexay calanka israa'iil, sida looga falceliyey. warbixinada warbaahinta israa'iil ay daabacayso qaar ka mid a ciidanka israa'iil oo ku qasbanaaday inay shaqada ka tagaan marka la eego xaaladaha halista ah ee ku qabsaday magaalada khaza, iyo warbixin ku saabsan maxay dowladaha islaamka ama hoggaanka dowladaha islaamka ay go'aan u qaadan la'yihiin, maxaa hortaagan inay awoodda ay leeyihiin ay adeegsadaan. waxaan kula wadaagi doonaa xogo kooban oo arrintaasi ku saabsan. soo dhowaada saaxiibayaal, meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka. waa 16 bisha sebteembar sanadka 2025 maalin talaada ah. ku soo dhowaada maracadda show. ku soo dhowow dugsiga anwaar alqur'aan online, fursaddii ubadkaada ay ku baran lahaayeen qur'aanka kariimka, axaadiista nebigeenna, luqadda carabiga, tajwiidka iyo tawxiidka. waxaa fursaddan ku diyaariyay dugsiga anwaar alqur'aan online. adiga oo jooga gurigaada ayay ubadkaada ku baranayaan tarbiyada iyo diinta islaamka. haddii aad ku sugan tahay qurbaha, ka faa'iidayso fursaddan oo la xiriir telefoonnada shaashadda kaaga muuqdo. mahadsanid. waargelin muhiim ah. ma doonaysaa in laga cumreeyo waalidka oo dhintay ama sariiryaal ah? shirkadda almahdiyiin ayaa kuu qabanaysa hawshaasi iyadoo laguu soo bandhigayo ama laguu soo duubayo siday wax u dhacayaan. fadlan la xiriir telefoonka shaashadda kaaga muuqdo si adigoo gurigaada jooga lagaaga cumreeyo waalidkaaga haddii aad awoodid. mahadsanid. mar kale isku soo noqod wanaagsan. waxaan ku hormarayaa warbaahinta ayaa waxaa qabsaday gaar ahaan barta twitter-ka ee dalkaasi bakistan muuqaal uu ka soo muuqanayo mid ka mid ah golaha wasiirada ee dowladda bakistan, si gaar ahaaneed wasiirka horumarinta iyo qorsheynta ee dowladda bakistan axsan iqbaal, isaga oo jeexaya calanka israa'iil kadib markii uu caro weyn uu ka muujiyey waxa ka soconaya magaalada khaza. muuqaalkan warbaahinta ayuu qabsaday, laakiin siyaabo kala duwan ayaa looga falceliyey. waxaa la isweydiiyey tallaabada xigta ee dowladda bakistan ay qaadi karto waa maxay? si la mid a sida calanka loo jeexay, suuragal ma tahay in israa'iil weerar sidaasi oo kalea lagu qaado? midna maanka ku hay, bakistan, turkiga, masar, indonesiya iyo dowladaha kale ee awoodda leh ee soo koraya dhanka dhaqaalaha ee islaamka ah waxaa lagu warramaya in iyagana lagu maqayan. si gaar ahaaneed ayaan warbixin ugu eegi doonaa, weliba falanqayn ay ka qaybgalayaan khubaro dhanka amniga iyo militariga ah oo aad u falanqaynaya tallaabada xigta ee ay doonayaan maraykanka iyo reer galbeedka inay si wada jira u qaadaan iyaga oo kaashanaya israa'iil. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso marka, maadaama dowladahan iyagaba sidaa in loogu maqan yahay loo sheegayo, maxay iyagana ugu maqnaan la'yihiin cidda ku maqan? bal jawaab mu haysaa? aan soo laabanno. wasiirka wasaaradda horumarinta iyo qorsheynta ee dowladda bakistan ayaa muuqaalkiisan waxaa lagu warramayaa in uu go'aanka qaata uu jeexay calanka israa'iil, isaga oo khudbaynaya kadib markii caradii ay ka tanbadatay marka la eego magaalada khaza iyo waxaa ka soconaya. bakistan waa mid ka mid a dalalka hubka nuclear ka haysta. shirkii shalay ka dhacay magaalada dowxana, ra-iisul wasaaraha dowladda bakistan oo keliya ayaa ahaa dalka islaamka ah ee haysta hubka nuclearka ee ka soo muuqday shirkii ka dhacay magaalada dowxa. 57 dowladood oo islaam ah, keliya hal dal ayaa haysta hubka nuclearka. dowladihii kale ee ku fakarayna waad ka warhaysaan halka la marsiiyey. venezuela marka la eegana, madaxweynaha maraykanka ayaa shaaciyay duqayn cusub inay ka geysteen badda Caribbean-ka, islamarkaana ay bartilmaamaysadeen dooni uu sheegay inay ka timid dhanka iyo Venezuela. weerarkan ayaa dhacay maalintii shalay, waxaana madaxweynaha maraykanka uu sheegay in howlgalkan isaga uu hagayay. duqaynta waxay ka dhacday biyaha Caribbean-ka, waxaana lagu warramayaa in ay dhinteen 3 ruux oo la socday doonidan oo lagu eedeeyay inay waxyaabaha maanka dooriye ay waday. madaxweyne Trumpna waxa uu taagan yahay doonida iyo xubnihii saarnaaba waxay ka tirsan yihiin waxaan u naqaano narco terrorist ama argagixisada narco, waxayna isbahaysi leeyihiin buu yidhi madaxweynaha Venezuela. maamulka madaxweyne Trump ayaa baahiyay muuqaalkan oo muujinaya iyagoo doonidii bartilmaamaysaday. waa markii labaad sida madaxweyne Trump uu sheegay. waxay arrintan ku soo beegmaysaa iyada oo shacabka dowladda Venezuela loo tababarayo adeegsiga noocyada kala duwan ee hubka si ay isaga difaacaan weerar kasta oo kaga yimaada dhanka iyo dalka Mareykanka. halkaasi xiisad weyn ayaa ka soo socota
sababta venezuela loo weerarayana wax kale ma ahan maxaad reer bariga xiriir ula samaynaysaa yacni shiinaha iyo ruushka halkaa maxaad u aaday waan arki doonaa arrimahaasi waxyaabaha kasoo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah magaalada khaza maanta way gubanaysaa duqayntii ugu cusleed ayay la kulmeen shacabka falastiiniyiinta israa'iil waxay sheegtay inay bilowday duulaanka cusub ay doonayso inay ku qabsato meel kasta oo magaalada khaza ka mid ah duulaankani cusub waxa uu kordhiyo weerarada dhanka dhulka iyo cirka muddo 2 sano kadibna waa duqayntii ugu cusleed oo reer khaza ay la kulmayaan tan iyo xalay maanta waxaa u sii dheer in ciidamada israa'iil la sheegay weerar dhanka dhulka inay bilaabeen iyagoo doonaya inay isku ballaariyaan qaybo badan oo magaalada khaza ka mid ah wasiirka gaashaandhigga israa'iil barta twitterka wuxuu ku soo qoray qoraal uu leeyahay khaza way gubanaysaa go'aankan ama weerarkan waxaa lagu soo aadiyay saacado un kadib markii uu soo idlaaday shirkii 57 dowladood oo islaam ah ay ku lahaayeen magaalada dooxa iyaga oo aanan qaadan go'aan rasmi ah oo lagu joojin karaya dagaalka magaalada khaza ayuu shirka soo idlaaday xitaa kuma aysan hanjabin haddii saacado gudahood israa'iil waxa ay wadda ay ku joojin weydo in ay go'aan rasmi ah qaadan doonaan dhimashadu waxay sii maraysaa in ka badan 60 ruux sida wararku ay sheegayaan dad kale oo dhaawacyo qabana waxa la dhigay xarumaha caafimaadka ra'iisul wasaare Netanyahu wuxuu si cad u sheegay magaalada Gaza inay ka bilaabeen weerar xoogan isla markaana xaaladdu ay aad u adag tahay maanta waxyaabo muhiim ayaa soo socda ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay barta Twitterka waxay arrintani ku soo beegmaysaa iyadoo maalintii shalay Netanyahu iyo Marco Rubio oo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka kulan ay yeesheen ma go'aankii ay iyaga ay gaareen ayaa lagu bilaabay weerarka mise waxay ahayd in weerarkan lagu joojiyo go'aanka dowladaha islaamka ee magaalada Dooxa wasiirka arrimaha dibadda wuxuu yiri xogaga iska cabinta ee Xamaas waqti kooban ayay haystaan oo ay ku aqbalayaan xabad joojinta waqtigaasi koobanna waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo jawaabaan waxaana uu doonayaa jawaabtooda inay ahaato qorshaha ay ka doonayaan xogaga iska cabinta ee ah inay hubka dhigayaan ma ahan yani xabad joojin kale oo xogagu ay ogolaanayaan marka la eego duqeyntii talaadadii la soo dhaafay ka dhacday magaalada Dooxa waxa la sheegay inay dhacday xilli aad loogu dhawaa in heshiis la gaaro xogaguna ay doonayeen inay aqbalaan wax walba laakiin ra'iisul wasaare Netanyahu oo doonaya in xaaladda la sii dheereeyo fursadna loo helo dagaalka magaalada Gaza iyo barakicinta dadka shacabka ayaa qaatay go'aankaasi waliba 50 daqiiqo ka hor inta aanan weerarka la qaadin ayaa lagu wargeliyay madaxweyne Trump inkastoo mar walba raadinta fursadda xoogaga lagu bartilmaamaysan karo hogaankooda ay ahayd mid ay ka sinaayeen haddana weerarka Dooxa 50 daqiiqo ka hor ayaa lagu wargeliyay isagana 10 daqiiqo kadib ayuu u sheegay dowladda Qatar taasi waxay ka dhigan tahay inuu madaxweyne Trump haystay fursad uu weerarka ku baajin karayay laakiin falanqeeyaasha qaar waxay aaminsan yihiin haddii sheekada guul ay noqon lahayd Trump isaga ayaaba sheegan lahaa weerarka wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin qoraal ayay soo saartay waxaana ay tiri waxaan dalbanaynaa faragelin caalami ah oo lagu joojin karayo dambiyada dagaal ee ka soconaya magaalada Gaza laba guuto oo kamid ah ciidamada Israa'iil ayaa lagu waramaya weerarka maanta inay bilaabeen guuto saddexaad ayaana la sheegay inay ku soo biirayso sida ay warbaahinta Al Jazeera ay baahisay goordhow taasi oo xaaladda aad u sii adkeynaysa isla markaana muujinaysa inay ka go'an tahay barakicinta dadka shacabka ah dhinaca kalena in ka badan 60 ruux ayay maraysaa tirada dadka ku shahiiday waa berigi maanta weerarka magaalada Gaza ka bilowday kumanaan kun oo kamid ah ciidamada Israa'iil ayaa dhinaca kale lagu waramayaa inay doonayaan inay isaga tagaan shaqada iyadoo ay ugu wacan tahay xaaladihii adkaa ay kala soo kulmeen magaalada Gaza iyo xaaladda nafsaaniga ah ee ciidankani haysata dhinaca kale Masar waxaa lagu waramayaa heegan buuxa inay gashay gantaaladeedana ay ku rakibtay gacanka Siinaa iyo deegaanada dhinaca xadka maxaa yeelay waxay doonayaan inay ka hortagaan barakicinta qasabka ee dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta inay ka soo gudbaan deegaanada dhinaca xadka ah xaaladdu aad bay u adag tahay maanta waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah markaan aan eegno waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso waa maxay sababta ay dowladaha islaamka ay go'aan rasmi ah u qaadan la'yihiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hal su'aal ma garanaysaa farqiga u dhaxeeya madaxweyne dadka shacabka ay soo doorteen iyo mid aysan shacabka soo dooran aragtidaada ila wadaag aan kuu raaciyo shacabka dowladaha islaamka iyo madaxda xiriir noocee ayaa ka dhaxeeya ciidanka iyo hoggaanka dowladaha xiriir noocee ayaa ka dhaxeeya shacabka iyo ciidankana farqi intee leeg ayaa u dhaxeeya yacni gaab intee leeg ayaa ku dhex jira aan kuu raaciyo dowladaha islaamka ama kuwa carabta diyaar ma u yihiin inay tartan ay galaan
dhaqaalahooda miyay ku soo iibsadeen tiknolojiyad iyaga gaar u ah oo aan lagula socon karin? miyay ku soo iibsadeen noocyada kala duwan ee hubka casriga ah ee dheela tiran oo aanan maraykanka ama dhanka reer bariga aanan u badnayn? ma ka warhaysaa in dhaqaalo tira badan ay ku bixiyaan dalka maraykanka iyo sidoo kale maalgelinta dowladaha kale ee reer galbeedka, laakiin waxaa la isweydiiyaa maxay ku badasheen? maxayna weli u kasban la-yihiin xitaa dowladaha maraykanka iyo reer galbeedka, yacni si markii dhibaatadii talaadadii dhacday oo kale loogu qorsheeyo ay xabadka ugu garaacaan maraykanka oo aysan u dhihin suuragal ma ahan in dal hebel aad bartilmaamaysato oo bariga dhexe ku yaala. ma isweydiisay weli su-aalahaas oo idil? qaarkood aan isku daya su-aalahaasi inaan ka jawaabo. waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya shacabka iyo sidoo kale dadka madaxda ah ee xukunka haya. inta badanna dowladaha islaamka waxay u badan yihiin mas-uuliyiinta hoggaanka haya kuwa aysan shacabka soo dooran oo waa boqortooyooyin. shacabkana cadaadis xoogan ayaa lagu hayaa. qaadashada go'aanka shacabka marka waxaa ka weyn midka ay madaxda qaadanayaan. haddii ay madaxda go'aan adag ay qaataanna waxay qaarkood ay dareensan yihiin inaysan haynin midnimo buuxda oo dowladaha islaamka oo biri garabkooda lama soo istaagayo. maxaa yeelay ciraaq oo kale waad aragtay wixii ka dhacay markii saadaam xuseen hortooda lagu cunayey, cidna kama aysan hadlin. sidoo kale libiya, labada dowladood ma xasuustaa sababta loo beegsaday? waxay dowladahasi ku fekerayaan aragti weyn oo ah midnimada dowladaha islaamka. qaladaadkii ay galeen waa gooni, laakiin waxyaabaha ay ku fekerayaan waxaa qayb ka ahaa midnimada dowladaha islaamka iyo macamar alkhadaafi aragtidiisii ahayd in africa ay noqoto yacni qaarad isku tashata oo awood leh wax wana aanan loo meerin. maanta markaad eegto dowladaha islaamka satellaydyada ay isticmaalaan bal ka waran. muqaabaraadkooda ama sirdoonkooda waxaad muddaa marka aad in loogu dhex jiro, sababta teleefonada ay adeegsanayaan, satellite-ka, internetka iyo waxyaabaha ay adeegsanayaan ma ahan kuwa iskood, yacni iyaga ay farsamaysteen oo iyaga ay hawada u direen. shiinaha ayaa tusaale kugu filan. mar walba wuxuu yidhahdaa reer galbeedka oo aad yacni agabkooda aad isticmaasho waa qayb ka mid ah gumaysiga lagugu hayo, maxaa yeelay xogtaada way ka warhayaan. arrinta ugu muhiimsan waxay tahay dowladaha islaamka tartan diyaar ma u yihiin. dowlado yar ayaa jira oo turkiga iyo iiraan ay ugu horeeyaan. dhibaatada lagu hayana waad ka warhaysaa, oo turkiga isku filnaan wuxuu gaaray inuu nidaamyadiisa difaaca, hubkiisa, diyaaradihiisa droniska uu soo saarto. iiraan sidaasi oo kale. laakiin tusaale yar dhanka satellite-ka waxaa kugu filan. iiraan markii weerarka lagu qaaday gudaheeda waad aragtay inta diyaarad ee drone laga kiciyey, basaasiintii gudaha ku sugnaa. iyadoo sidaas ay u xirxiran tahay ayaa haddana iiraan yani gudaheedii laga adeegtay, waana dhanka internetka. iyadoo markii dambe iiraan ay ku fakartay xitaa inay satellite hawada u dirsato iyadoo ruushka kaashanaysa. maalin dhaweed hadda waxaa israa'iil ay sheegtay inay satellite cusub ee hawada ay u direen weliba mediterranean-ka gaar ahaan. waxaa la doonaya satellitekaas inuu macluumaadka ugu badan uu ka keeno turkiga iyo sidoo kale masar. markaad rabta inaad ogaato marka farqiga u dhexeeya hogaamiye la doortay oo shacabka ay doorteen iyo midaana la dooran, waxaa tusaale kugu filan. ma xasuusataa maxamed mursi, madaxweynaha dowladda masar 2012 markii dagaalkii khaza uu bilowday, hadalkii uu yidhi waa tii uu lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan israa'iil haddii aysan u joojin dagaalka dhinaca kale ayay wax walbaa ka noqon doona. yacni waxaa laga baqay markaas in malaayiinta ruux ee masaarida albaabada loo furo israa'iil dukumdaakum laga dhigo. markaaba waxaa lagu fekeray in wax ugu daran xoogaga iska caabinta ay jiraan oo qasab ahayd masar iyo isbedel in laga sameeyo. wixii ka dhacay 2013kiina waad ka warhaysaan. mursi wuxuu ahaa madaxweyne la soo doortay oo shacabka masaarida ay soo doorteen. waxaa jira marka 3 arrin oo ka duwan arrimahaasi oo idil oo israa'iil ay ku dhaqaaqday. yacni ama israa'iil la dhihi karayo guulo ayay u horseedeen iyo taageero inay ka hesho qaybaha kala duwan ee dowladaha reer galbeedka. waa tan koowaade, israa'iil taariikh ahaan ayay inta badan ay ku beer la xawsataa dowladaha kale ee reer galbeedka oo waxay yidhaahdaan waana la dilay, adduunkii ayaa inoo madoobay. yacni waxay soo qaataan weerarkii holocaust loogu magacdaray dhibanayaal inay yihiin ayay dadka intiisa kale ay u muujiyaan si ay taageero u helaan. waa tan koowaad. tan labaadi, israa'iiliyiintu waxay aaminsan yihiin in magaalada qudus oo gacanta ay ku hayaan ay tahay meesha ay ka soo burqanayso taariikhda masiixiga. waxaana taagan yihiin marka oo ay qaybaha kale ee diimaha kale dadka haysta ay ku beer la xawsadaan inay iyaga islaamka ka hortaagan yihiin oo nuurkii halkaas ka imaan lahaa ayay doonayaan inay damiyaan iyo waxyaabaha la midka ah ayay dadka diimaha kale haysta ay ku soo dabaan. arrin saddexaad ayaa jirta marka labadaas laga yimaado, arrin saddexaad oo muhiim ayaa jirta. waa arrinta ah in xoogoodu oo dhan ay isugu geeyeen tiknolojiyadda iyo warbaahinta. oo maraykanka markaad eegto culimada ugu badan
oo maraykanka number 1 ayay ka yihiin, maalqabeennada ugu badan maraykanka number 1 ayay ka yihiin, warbaahintana iyagaa gacanta ku haya. oo warbaahinta waa waxa ay yani weerarka u adeegsadaan mararka qaarkii. waa tii aan marar badan idinla wadaagay in marka hore wax la doonaya in la qabto warbaahinta loo soo dusiyo, falcelinta la eego, waxa ka dhalanaya iyo sida loo falanqeynaya la eego, kadibna tallaabadii la qaado. warbaahinada waaweyn ee maraykanka ka soo baxa iyaga ayaa gacanta ku haya. taa beddelkeeda marka warbaahinta dowladaha islaamka iyo carabta balfiiri iyagii isma soo xiganayaan oo xitaa warka kalama qaadanayaan oo xogaha isma dhaaf. laakiin taa beddelkeeda warbaahintii reer galbeedka iyagaa soo xiganaya, Axios, Daily Mail, Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal iyagaana baray, iyagaa soo xiganaya. kanaalka 12aad oo Israa'iil, dhammaan marka warbaahinadaasoo idil xigasho ayay ku sameynaya, iyagii way isxaqirayaan. tartanka markaad eegta la doonaya inay dowladaha kale la galaan dhanka teknolojiyadana iyagii ayaa isku maqan, waa shiico, waa sunni, waa sida. marka arrimahaasoo idil inaan fahmno ayaa muhiim ah. waxyaabaha kale ee muhiimka waxaa qayb ka ah in la fahmo madaxda dowladaha islaamka marka ay xubno muhiima u dirsanayaan dalalka maraykanka, aqoon intee leeg ayay la soo laabtaan. oo qofka marka maraykanka uu tago oo dowlad islaam uu ka socdaba isla markii waxaa la isku dayaa in la duufsado. intaan idilan kula wadaagay waa aragtidayda iyo waxyaabihii aan xoogaa yar soo koobay soo akhriyay. dhammaan dalalkii 2011kii kacdoonada carbeed ay ka dhaceen, Masar maxaa looga reebay ma isweydiisay? sababtoo ah Masar waa 120 milyan dad ka badan ama 100 milyan iyo in ka badan. haddii Masar qalalaaso uu ka dhaco, waxaa laga baqay 10 milyan ee Israa'iil inay yacni xoog ay ku galaan. masaaridana marka dhaqanka dagaalkii laga hadlay waa laga warhayaa. Syria waxaa hadda madaxweynaha jooga uu ka fakerayaa in dowlad casri oo modern inuu sameeyo 2 sano doorasho uu ku qabto, si yacni dadka ay iyaga u soo doortaan ruuxa hogaaminaya, biri marka awood u yeelanaya, dadku adeegsanaya. laakiin taa beddelkeeda lalama doonayo. waxaa la doonaya inay qabaa'ilaadkii, duruuskii meel lagu hayo, calawiyiintii meel lagu hayo, inta yare krishtanka meel lagu hayo, sunniyiinta meel lagu hayo. maxaa yeelay haddii ay doorasho wadajir ay sameeyaan way midaysan yihiin, yacni ruuxa shacabka ay soo doortaan marka la eegano awood ayuu leeyahay oo iyaga ayuu biri adeegsanayaa marka uu dareemo culays kaga imaanaya dal dirisla ah. hadda marka aan eegno marka wixii magaalada Dooxa ka soo baxay, waxay la tahay meeshii ugu wanaagsaneed maanta in la joogo marka laga hadlayo sida ay u dareemeen inay beelaha joogaan, midnimo u baahan yihiin, tiknoolajiyad cusub u baahan yihiin. yacni meeshii ugu fiicneed inay joogaan ayaan anigu aaminsanahay maanta. yaan la eegin war saxaafadeedyada iyo hadallada la soo saaray iyo khudbadaha la jeediyey, laakiin dhinaca kale fursadaha meesha ka jira maanta iyo siday ugu qasban yihiin inay beylahda ay joogaan ay ka baxaan. hadalkii madaxweynihii dowladda Masar Maxamed Xusni Mubaarakna ay xasuustaan, waa meeshii ugu fiicneed hadda halka ay taagan yihiin. 10 sano ama 5 sano ee soo socotana waxay ku qasban yihiin inay balangarayaan ama ay qorsheeyaan sidii isbeddel ay u samayn lahaayeen. isla maanta go'aan lama gaari karo, maxaa yeelay wax walba hadda way isku dhex jiraan. waa in la kala saaraa, si tartiiba loo kala saaraa, loo weecdaa ama la raadiyaa beddel kale oo maraykanka ah, tiknoolajiyadan laga guuraa, basaasiinta tirada badan ee ku dhex beeran ugu yaraan la iska qabqabtaa, dhaqaalaha ay reer galbeedka ku maalgeliyeen ay dib u soo celiyaan si biri ugu yaraan dhaqaalahoodii aan loogu weerarin oo aan looga xanimin. arrimahaasoo idin waxaan isleeyahay maanta meel wanaagsan ayay joogaan dowladaha islaamka iyo kuwa carabta. aragtidaada nala wadaag. tani waa aragtideeda, waad mahadsan tahay.